wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta oo maanta soo gaaray magaalada Boorama ayaa waxa uu kulan la qaatay maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada Boorama kulankaasi oo lagaga hadlayay qaabkii loo nashqadeyn lahaa magaalada Boorama ayaa ugu horeyn wasiirka wasaaradda howlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qambi oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in bilowga sanada 2021 magaalada Boorama laga bilaabi doono nashqadeyntii magaalada Boorama waxaan doonaynaa sanadkan soo socda imika kan waa dhamaade bilaabmaya 2021 waxaanu halkan ka sameeynaa master plan-kii Boorame waxaanuna imika u sii jeedinaynaa maadaama aan waqtiba ka harin inta ay gaabo aan wadno ay ka hadhay hadii Ilaahay yiraahdo in gudoomiyaha gobolka maayarka ganacsatada in aanu si wacyigelino ogeysiino in laga qayb qaato hawsha annagu wixii nagu beegnaa waa diyaarinay waxa kale oo inta ku darayaa waxaa jira guryaha dawladdu leedahay magaalada guryaha dawladda waxa ugu maqaala sidaan maamulka gobolka iyo guud ahaan aan hayay in dad badan oo kamid ah kirada diideen waxaanu sheegaynaa wax kira oo laga saamaxayaa ma jiro cid aanu u hayno lahaansho uu leeyahayna ma jirto waxa la yiri dad badan baa sheeganayay inay guryaha leeyihiin hawshan maanta loo socda oo ah tii future-ka wanaajin lahayd magaalada Boorama magaaladuna ay noqoto magaalo master plan leh oo wanaagsan oo lagu soo hiran karo runtii oo la isku waafajiyo talooyinka aad soo jeedisana waa talooyin midhadhala waana qaadanaynaa ka dawladda hoose ahaan iyo ganacsatada magaaladuna waan isku hadhaynaa kol hadaynu muddo haysano magaalooyinkii kol hadda intaad ceergaabo ku jirtaan inaan intaa anaguna si dhamaystirano haddii Ilaahay wixii naga qabiya wixii aan kaga qayb qaadanayno iyo wixii tala aan ku darayno iyo dhaqaalaba inaanu inta ka sii diyaar galowno dawladda kaligeed waxay qabataa waa wax xadidan marka laakiin dadkeedii iyadu iskaashadaan waxay noo qabsoomay wax badan nasiib wanaag maanta mar hadaynu dawlad iyo dadweyne diyaar u nahay inaynu mashruuca masal banaanka loo sameeyo Boorame si wada jira wuxuu ku qabanayno waa Ilaahay mahadi waanu guuleysanay waanu fulayaa wasiir gobolka Awdal waa gobolka aqoonta un baa la ilaahay wax kale oo dheeraad u leeyahay jira waa gobolka ikhtilaaqa waxa la yiraahdaa waxa wanaagsan Soomaaliya oo dhan ku dhaqmi jirtay meelaha ay ka soo bilaabmaan bay kamid tanna wixii gobolada kale ka soo qabateen inaanu wax ka wanaagsano aanu ku daro ka ikhtiraacno ayaanu ku talagaleynaa insha Allah hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom